ونكني ليه السلام عليكم waxaan joogay hadda ka hor wadanka China waxaan galay mukhaayad waxaan ka cabay sharaab lacag ma siinin kadib bas baan raacay isna lacag ma siin haddana wadankii waa ka tagay lacagta sidee baan isaga gudi karaa sheekhu ma garanayo maxaa ku xambaaray inuu China xoolihiisa dhaco waa su'aal isweydiin maqaayad cunto ku cuno iska dhaqa oo bas fuulo iska dhaqa wax la yaab leh waxaan u maleynayaa ninkaasi waa Soomaalida waxay rumaysan yihiin qaar badan oo kamid gaalada xoolahoodu in iska banaayeen meeshaad ku aragtaa cun qaado aad goor baa la sheegay nin oo Soomaali ah oo kambaniyo iyo warshado Chinese la mucaamalan jiray waa reer Nairobi marka badeecu soo qaadi jiray oo soo cadeyn jiray oo markii waxoogaa kalsoonidii uu helay oo ku kalsoonaadeen buu xoolo badan hal mar ka soo qaaday Nairobi inuu yimid uu cadaystay way ka daba yimaadeen markay ogaadeen inuu ka soo degay airportka Nairobi oo magaalada yimaadeen yu Soomaaliya u cararay waaba doomaray Chinese iyo isli dhex socdo Soomaalida fiirfiirinahay hoole bal ninkii inaad ka dhex aragtaan ma Soomaali dhex kale way arkay anadu marka xoolahan kadaati waatii aan hadda tilmaamaynayo ruuxa gaalnimadiisa sababteeda xoolo kuma banaanaada عشان waa gaal wax kuma banaanaada gaalkan noociya almuhim waxa waajib ah inaad toobad keento oo Ilaahay u toobad keento kow laba inaad xuquuqdan celiso cidii lahayd inaad u celiso haddii aad garan weydo ama aad gaari weydo ama suurtagal noqon weydo xoolihii qiyaastoodii waa inaad masaalixdiiyo danaha guud ku bixiso cuntadaad cuntay intay ahayd baskaas tuushay intee buu ahaa xoolaha soo dhacday intay ahaayeen qiyaastoodii iyo qadarkoodii waa inaad sadaqayso masaalix العامة ku bixiso masaalix العامة muslimiinta wadooyinka isbitaalada ceelasha masaalixda caamka inaad ku bixisaa waajiba ilaahina u toobad keento tabaaraka wa tacaala wallahu a'lam